بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشينا داهر عبد الرحمن سو دواذا ولال يوتيوبان هذا كسو بيري إن شاء الله صفي عن ولي ومسو قلن وايو هولا بدن با ولي إيدمان إن شاء الله إنا سو قلا وصفي عن أم أسو قلا أيام ربا هدو ألا يراها marka story fara badan baan hayaa waad ogtihiin dhibaatadii ugu dhacday 2013kii 14kii ilaa intaan dhaxdooda story ah ilaa maalinkaan dhashay ilaa waqtigaan dhashay story ahaan buuxaa dad kale wallahi inaan la warsanayn storyga saas ilaaha markiis wax meel aan saa iskaga bixiyo aan ku hadla ayaan rabaa aan ku nafis marka nafiskina xaqiinu soo galay insha Allah wixii qalad ahna ka istaaga dadii doontaan youtube-kayga daahir channel ku qoran wixii xun insha Allah ilaahay iga qabto qof weyn baan nahay ilaahay uma ceebaysto ilaahay waxaan ka baryayaa inaan midkaan gaf aan ku gudbiyo ilaahay inuu se iga dhigin laakiin dhacdadii aniga ugu dhacday inaan ka hadla insha Allah saasaan rabaa hadduu ilaahay yiraaha soo dhawaada walaal macaan insha Allah aniga waxaa igu dhacay waa 2020 aan malaynaa aan kalibi yar aan facebookayga soo dhigay 3 iyo 2 waxay ahaayeen ma aqaana anoo aad u xanuunsan oo indhaha cadaynayo oo ilaahay xaalkayga ogyahay ayaan soo dhigay laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin walaal sidii hore ma ahi waxaan noqday dadka maxay ugu yeeraan kilo ma which ma laha annaga af Soomaali waxaan dhahnaa buda qofka markuu wax fiiriyaba hore fakka si dhaw qofka bay dila ama haata neef haduu fiiriyo haduu uu fiiriyo wax uu fiiriyo horta wixii liigu duro waxaas oo kaloota ayaan ka qaaday waligay qof walaal qumayma noqonin qof walaal wixii samaana fiirin haduu buuxa iyo haduu baryahay iyo wuxuu ilaahay siiyay wallahi inaan waligay fiirinin qof walaal waligay inaan wixiisa aan fiirin ilaahayna waa ila ogyahay ubadna ilaahay waa siiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin 8 cunugan dhalay intaas ka badan hadee dadka ilaahay ninkuu sii waa dhalaan laakiin meesha ugu fiicneed inta ilaahay uu dad ii gartay waan dhalay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wiil iyo gabarna wuxuu ilaahay ku qadaro oo kugu arsaaqay inaad iimaansato alxamdulillah tirahana waa hadee waa wax laga sugaayo waxaad adiga beeratay maaha ilaahay baa ku sii inaad adiga meed celiso ilaahu adaa ku mahadsan aad tiraahdo waa fiican tahay mahadaas ilaahay baa iskale nin kaloo le male ilmaha ilaahay baa bixiya oo diida marka anigooba saas waxaan dhihi karaa horta iimaankayga dhaawacmay miyaan dhihi karaa ma ogi wixii ugu dhacay ma kasay bahasha shab markay leeysiiba wax allah waxay ugu dhacay ma garanay hawadan ka baxay bam marka horta storyga waa dheer yahay wax hadda laga gudbi kara ma aha waa wax aad u dheer waxaan rabaa codsi baan wataa horta marka koobaad codsiga aan wato waxay tahay dadka walaalahay ahay oo Soomaaliyeed hadee dadka kale ismaba afnaqaanaba dadka Soomaaliyeed oo aniga hunkayga inay dhibaato u gaarto laga yaabo waxaas waxaan aniga ku gaarsiin ma aha waa wax aniga ba igu kadeedan oo meel aan la fariista gurigaygaan la degilaahay buu ahaa waa waxaan ku rafaaday ilaahay baan ku dhaartay nafta baana iga go'in ma ogiye yaani hadaa kolba in li kala jeex dhibka markaas aan dareensana oo qofka bani'aadanka gudihiisa laga akhrisan kara wallahi waad ka akhrisan leedeen laakiin kolba qofkii maskaxiya aqli ilaahay uu siiyay oo indhahayga markaas aan waxa duubay indhahayga aad u arkay u dareemi karaa dhibaatada wajigayga iyo ku qorneed inaan qof aad dhibaato ay ka muuqato inaan ahay marka horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin horta waxaan rabaa inaad iska cafisaan ninkii afkayga xun u gaaray horta ma hadal badneen oo dadka maba joqoy jirin laakiin maraha qaaran hadalkan hadla inuu qofka dhimbil ay ku noqoto ayaa laga yaabaa marka waxaan rabaa walaalayaal inaad iska cafisaan qofka hadal xun aan u geystay ama aan dhaawacay oo inaan dhaawacay moodo aniga walaal de kaskuuma yeelaynin aniga baa xanuunsanay control ma lahayn ma walneen laakiin control ma lahayn qofku wuxuu controli karaa controlkii baa maqnaa
laakiin ma waalneen oo maskaxdayda hadday waali oo dhag maan waalneen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin taasba waa ilaahay baa mahad iskale marka horta dhibaatadee aad bay u badan tahay waxaa igu duugan oon soo wada haddaad og tihiin meeshaan unbaad ku soo wada xaadiri laheedeen waa soo fafariisan laheedeen wallahi horta waxaa igu duugan oon soo wada dhigihiinna inaad ii amaahaysaanan jecla ood ii dhiibataan in yar ood dhahdaan balhaye nagu shub wax yar insha allah aniga dadka waa iska hadlaan laakiin dhibaata ay soo martay ana horta reer maraykan oo idil waxay ma yeelin waa liisoo caawi qaxooti baan ahaa reer maraykan oo idilba waxay ma yeelin maraykan haddee waa konton gobol haddaan dhaha maraykan baa liigu dhibaatay maraykan baa saa liigu yeelay waxaan noqonaa qof wixii loo sameeyey haqiray oo jisaarayaan noqonaya an reer maraykan oo idil waxay ma yeelin waa lii caawi ilmahayga iskuul bay ii dhigtaan cuntaan lay siiyaa markaan shaqaysan karnana haddii waxaan u qalanaa lay siiyaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddaan shaqo la-aan gaarin aan noqonana weligaayna dowladda faraha nagama qaadan laakiin waxaa igu xadgudbay waa dad yar oo fara ku tiris ah 4 qof 5 qof intaasna maraykan oo idila igu xadgudubta ma dhihi kartid maraykan waxbana ima yeelin waddankaygaba dhib baa igu soo gaaray waddankayga dhibka igu soo gaaray oo kaloota ayay ka mid tahay dhibkan haddana halkaa igu gaaray laakiin wax yar oo waxaan dareemay dhibaatada inay ku gaarta wixii ku qoran horta kama weecanaysid oo kugu dhaca laakiin kisto raysasnimo ah aan dareemay dhibaatada wixii ku qoran 1000 sanay kaa weyn tahay maalinkaad xabii bii ahayd oo ilaahay ku qalqay ayaa ilaahay uu ku qadaray waxaad iska qaban kartaa male gurigaada haddaad joogto kugu dhacaya haddaad meel kale joogto kugu dhacaya marka tanna haddii aan joogana waa waddankaygii labaad inaan ku jisaarana ma rabo cuntaa liisii ilmaa iskuul lii geeyey anigii baa isbitaal liisii free ah oon lacag bixin noloshii dil oon shalay la shudaysnaa oon la dhibaataysnaa ayaa layga qabtay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin laakiin in yar xadgudubkane ama waddankayga aan jooga ama intaan jooga xadgudubka waa jiraa laakiin waxa yara kulleeyay ayaa waxaa ahaa raysasnimada oo maaragtay midabta kor ahaan inay dadka ku jirta aad moodaysa waayo kan hadduu kugu gafo kan inuu caawinaad kuu fidiyo ayaa wanaagsan laakiin kan inuu kugu gafo kii kalena u aaso oo adiga indhaha kugu soo cadee ayaa arrintaasaa meel loo qaada aanan lahayn intaasaan dhabsadoon dhaliil aan ka wadi aniga ma ogii gafitaanka gurigaadana waa lagugu gafayaa gurigaygii labaadna waay kan alxamdulilah gurigaygii labaad waay ilaahay waa igu dhaqay ilmahaygii baa iigu koray qaar baa jaamacado gaaray cuntaa lay siiyaa iskuol free baa lay siiyaa waddankayga kamaba heshan intaas been maxaa la iskugu sheega inaan jisaaro ma rabo nolosha dhan ayaan ka helay maraykan laakiin dhibaato ayaa in yaroo gaaban igu soo martay taasna waa tu ii qorneeda laakiin raysasnimada iyo ma aragtaaye isqariska oo keed allah dhaqtarkaad allah kaad aad moodo inuu kuu micino aad rabto uu adiga waxaadiyo idil uu duugaayo oo adigii uu naatin kaa soo qaadayo oo inaad warkaas aad sheegaysaba qof waalan uu kaa soo qaadayo taasaa kisto ayaa kuleel leh marka kuleel ma laha dhibaatada igu dhacday laakiin runtii waxaa kuleel leh oo dhibaato ah adoo dhibaatadii faraha kula jiro oo dhibkii uu kugu dhacay inaa kaad u tagtana kisto aad ka dareentid raysasnimo inuu yacni uu ku tikaareynayo camal oo adigu uu qof ma aragtaaye ama ma aragtaaye aan saxsanayn kaa dhigo oo dhibaatadana ay kugu taallo marka waa idin salaamayaa insha allah wixii kalena waa idin soo wadaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta masalsalkayga intaasuu ku egyahay insha allah midka kalena waa idin soo daan doonaa insha allah ka axad baan soo gelin doonaa